ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابته شبكة جروس blogspot.com عشان aad ku xiiso badan maanta waxaan idin soo jeedinayaa aniga oo Cabdi Daahir casharkan waxaan ku bar doonaa qaabka loo sameeyo root casharkan aad ayuu xiiso badan yahay daawade waa maasantiin hadaba daawadayaal si root loo sameeyo aad ayuu fududahay hadaba seeba root marka sameeyno waa xajir program aad u fara badan oo loo sameeyo routine hadaba routineka program kaliya ee mobile walba awooda ama must awooda in uu root gareeyo waxa loo yaqaan king root waa program aad u fudud aad iyo aad u xiiso badan oo aad beneficial ah so marka maanta waxaan baranaa qaabka root loo sameeyo marka waxaan u baahanahay waxyaabo badan inta routine bilaabin waxa taginaa daawada settings waxa taginaa security kabacdi security marka tagano waxa leedahay announces ayaa tig saaraysa okay ayaa leedahay accept gareynaysa hoos ayaad imaanaysaa developer option ayaa ku dhufanaysaa so developer option daarkin waxa taginaysaa about device waa building number halkaas qoonta building number kaas ayaa 7 jeer riixaysa so waxaad arki doontaa developer option so developer option marka aragtid meeshaas USB debugging waxaad tig saaraysaa okay ayaa leedahay accept gray so marka inta sameyso waxaad tagaysaa Play Store waxaad soo download garaysanaa root jacker aad qoraysaa mid jeekun ku sameeyo program aad fara badan ayaa ku jiro mid kale ayaa la soo degaysaa ani mid ku horeeya la soo degay ka bacdi waan ku dhufanayaa waxaan leeyahay check ayaa halkaas ku dhufanayaa oo jeeda no x routine mobile ka root ma lahan waa inta soo doonaa root marka root ku sameeyo so waxaad tagaysaa marka programka ayaa soo download garaysanaa inta marka sameeysan waxaad tagaynaa website-ka aan tagaynaa waxaan qoranaa root waxaad qoraysaa daawada website-kan king root igraalno waxaan qalday kingroot.net ay qoraysaa daawada okay sidaas aad qoraysaa kingroot.net okay sita ay ku soo bixisa waxa ku dhufaysaa free download ay ku dhufanaysaa programki just install ay leedahay meesha ku install gareynaysa download ay halkaas ku dhufanaysaa programki uu ku soo download gareynaya markuu soo download gareeyo programki install ay ku sameeynaa marka so next install so programki no soo install gareeyo waxa ku soo qormo doona marka installation blocked programkan waa harmful program wuxuu leeyahay protecting security loo baahan waa program halistiisa oo marka meesha ala ku dhufanayso flairtas ay soo furaysaa mode detlist afafahina badan ka bacdi install anyway ale unsafe waxba safe garan install anyway so programkan maxay programkan ay wuxuu ogolaanaya mobile-ka programo aan loo talagelin uusan aqbalaynin ayuu marka root ka sameynaya open ayaa leena daawada waxa tabanaysa aad reexaysa kor ay jiidaysa mid kale waa try it routine checking ay sameynaya ka bacdi waxa ku dhufanaysaa root no access oo leema get now ayaa ku dhufanaysaa daawada waxa ku dhufanaysaa halkaas get now routine ayuu bilaabaa marka waan sugeynaa intuu daqiiqadaas ka dhameynaa daawade waan isku soo laaban doonaa markuu dhameeyo wajida daawade waxa soo root successfully mobile-ka waa root gareey uu leeyahay adiga wuxuu ku in laga yaabo daqiiqado badan ama waqti inuu ku qaato iska sug daawade ilaa 100 ka tagay root access wajida daawade root access ayuu leeyahay daawade hadii aan programka jack ku sameeynaa mobile-ka root leeyahay in kale ayaan taabanayna programka ayaan galeynaa waxaan leenahay jack daawade ujeeda waxa naga codsanaa root inaan ku sameeyno programki root king root so allow ayaa leedahay ka bacdi ujeeda access granted root wuu leeyahay telefonkaada saacadan laga bilaabo root telefonkaada wuu leeyahay marka cashka maanta waxaan ku baray qaabka loo sameeyo root waa maasintii daawada meel walba waa joogtaan
thank you very much.